walaalka waxa naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik martabad ka hooseysa jira labadaaba waa tan aynu ka waramayno waa qalbigaaguna caafimaad qabo at least inaad bukin ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahay ma aha inuu dadka ka caqli yaryahay ma aha inuu dadka ka hubi yaryahay waxaasoo dhan maaha ilaa nakal yar weeban bay haystaa laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan dabeetana ninba nin rabo inuu reebo ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo midba miduu bagaleeyay jabkiisa mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto midhmidh uma guulaysto koox kooxna uma guulaysto dowlad ahaanna uma guulaysto walidaalika caalamlislaami waxa yaalla waa uurxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya meel kastoo dagaal ka dhacayo gaalada qaar baa la safan qaar baa dhan kale u safan dhammaantood baa colaada iyo uurxumadu dhex taalla dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo oo soomaalidu ugu horeyso soomaalidu way soo karta dhib tiro badan baa soo gaadhay in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taagay hadda dad badan baa waxay leeyihin aan dib u midowno haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa su-aasha waa taa haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa haddii xanuunada tani idan kelimatu lmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan is-cafiyo oo is-saamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan qof qura xataa hadduu yahay wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn isagoo aan laabtu huraynin dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku-dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa isagoo ciil qabu sariirtiisa taga haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara ilaahay subxaanahu watacaala markuu nebi ibraahim inooga warramay baryadiisii fiirso nebi dhan oo rabbi soo diro oo ilaahay baryaya muxuu leeyahy walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahayow hay hoojinin buu leeyay maanta dadka la soo saarayo maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu culamadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu lqalb waa laba shay midna waa salaamatu lqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay tawxiidkaadu khaalis yeesho midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniintii inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad u hayn walidaalika nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi laibraahim id jaءa rabbahu biqalbin saliim nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid a id jaءa rabbahu biqalbin saliim baa ilaahay yidhi markuu rabbigii ula yimid qalbi saliima idan ayuha alaxiba in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab walidalik